Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan meel walba joogtaan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub oo kale oo faa'iidadiisa wato aan ugu talagalay dhammaan waalidiinta meel walbay ku sugan yihiin gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed. Videogan waxaan rajeynayaa insha Allah wax badan in aad ka faa'iidaan. Saddex waxyaabood ayaan doonayaa in aan ka hadlo insha Allah. Saddexda waxyaabood waxaan rajeynayaa hooyooyin badan ama waalid dhinac kasta isugu jiro aabayaal iyo hooyooyin inta ugu badana waxa waaye hooyooyinka caruurta ee Soomaha anaga meeshan badana waxa u furanay dumarka in lagu dhiirigeliyo wax badan looga soxo laakiin waa la iskugu jira oo waxa waaye ragna way ku jiraan dumarkana way ku jiraan laakiin mar walba waxaan rajeynayaa waalid haddii aad tahay in aad ka faa'iideysatid muuqaalkan oo ku soo gaaro si jawi degan ahna aad u fiirsatid. Saddex vitamin ayaan rabaa in aan ka hadlo caruurta boos weyn ugu jiro oo ilmahaaga haddii aad siin wax badan ay ka maqan yihiin. Ma doonaysaa waalid in cunugaaga uu noqdo cunug dhan walbo ka dhameystiran vitaminskiisa abiteedkiisa uu ku furmo si dabiici ah adigoo qarash badan aadan ku bixin. Jawaabtaada haddii tahay soo dhawow koobkaaga shaaha ah ama biyaha ah soo qaado meel jawi degan ahna ku dhageyso. Waxaan rajeynayaa insha Allah in videogan wax badan uu ka bedelo jadwalkaaga maalmeed adiga iyo caruurtaada adiga xitaa waa u baahan tahay waxyaabahan aan kuu sheegayo. Ugu horeyntii waxaan ku horey doonaa vitamin D. Vitamin D-ga muxuu taraa muxuu saqabtaa yaana loogu talagalay dhammaan aadamaha waa loogu talagalay laakiin anaga diiradeena ama channelkan badana hooyada iyo dhalanka ay u furan yahay. Saali ajligeeda waxaan ka hadli doonaa vitaminka caruurta ay u baahan yihiin waliba vitamin D-ga waxtarkiisa. Vitamin D-ga muxuu taraa muxuu faa'iido u leeyahay caruurta iyo haddii aan la qaadan maxaa dhici karo. Vitamin D-ga wuxuu taraa oo aad caruurta ugu fiican yahay wuxuu aad u xoojiyaa caafimaadka ilkaha iyo lafaha wuxuu ka hortagaa lafaha jilicsan wuxuu caawiyaa jirka inuu ka fogeeyo wax kasta oo calciumka yarey karo. Haddii aan la siinin caruurta wuxuu aad u weyn oo caan ugu yahay ilmaha in ay ku dhibaatoodaan lafaha oo jilco ilmaha in koritaankooda lafood uu gaabiyo ama uusan qaab wanaagsan uusan u korin. Marka waalid walba waxaan ku dhiirigelinayaa in uu siiyo caruurtiisa vitamin D. Vitamin D-ga gormo caruurta oo qaada karaa ama ilmaha ay qaada karaan waxay qaada karaan markii ay dhashaan ilaa iyo inta ay jiraan waqti walba way u baahan yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin qadarka ay qaadanayaan ama cabirka markaas la siinayo ay ku kala duwan yihiin. Waana muhiim in cabirka aad la socotid ama dhakhtar uu kuu qoro ama qofka ku siinayo si sax ah uu ku siiyo. Qaybteena labaad waa ironta maxay ilmaha u tartaa maxay u qabataa da'day lagu sii karaa saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa cunuga haddii aan la siinin ironta ama uu ku yaraado jirkiisa. Ironta sideeda oo dhanba waxay tartaa waxyaabo badan oo ilmaha ay u baahan yihiin. Waxay aad caan ay ugu tahay sameynta dhiigga ka hortaga dhiig yaraanta kordhinta xoogga iyo feejignaanta maskaxda. Dhibaatooyinka ilmaha ay ka dhaxli karaan hadday yaraato haddii jirka ilmaha ay ku yaraato ironta waxaa ka dhalan karo ilmaha wuu caajisaa midabka wuu cadaadaa koritaankana wuu gaabiyaa ama cunugii wuxuu noqdaa cunug makoro ah oo da'diisa aan u qalmin. Waalid haddii aad tahay waxa kula gudboon marka in aad ka warheysid ironta ilmahaaga aadna siidid ilmaha ka bilowdo 6 bilood wixii ka weyn ayaad u bilaabi kartaa laakiin waa in aad dhakhtar la tashatid ama cunugaaga irontiisa aad la socotid hadduu ku yar yahay iyo hadduu normal yahay. Waa wax uu u baahan yahay si daily ah in ay u helaan caruurta. Sharoobo ahaan ayaad u heli kartaa kaniin ahaana waad u heli kartaa oo kaniiniga ilmaha ka weyn maxaa la 5 sano ayaa loogu talagalay oo la sii kara laakiin badanaa sharoobada ayaa la siiyaa caruurta ilaa iyo 12 sano inta u dhaxeyso. Mar walba muhiim ay u tahay caruurta irontooda in la ogaado haddii aan la ogaana ama aad la soconna waxyaabaha aan ku soo sheegay ayuu cunugaaga ka dhaxli karaa. Waxaan guda gelaynaa qodobkeena saddexaad
faytamiinka saddexaad waa fitamiin A ama fitamiin alif. Wuxuu u fiican yahay ama ilmaha ay ka heli karaan dhowr waxyaabood. Halkan ayaan kuugu soo gudbi doonaa waxyaabaha uu qabto iyo waxyaabaha uusan qaban haddii uu yaraado oo jirka caruurta uu ku yaraado, iyo waxyaabaha loo baahan yahay inaad ka foojignaatid. Wuxuu aad ugu fiican yahay aragga indhaha, wuxuu xoojiyaa difaaca jirka, caafimaadka maqaarka iyo xuubka maskaxda iyo xuubka jirkana kor ayuu u qaadaa. Ilmaha hadduu ku yaraado waxay ka dhaxli karaan indhaha oo habeenkii oo kaleeto aragga uu ku yaraado, ama indhaha oo caad ka saarmo mar walbo. waxa kale ee caruurta ka dhaxli karaan xanuuno soo noqnoqdo oo aad u weyn dhibaato u keeni karo, sida xanuunka indhaha oo kale. Marka waalid walba waxaa la gudboon in uu fahmo faytamiiniska waxa ay qabtaan caruurtoodana ay siiyaan mar walbo, maadaama ayna heli karin markasto cuntooyin isku dheelitiran oo caruurta waxay u baahan yihiin cunto isku dheelitiran intii yacni wax cuni karaan in la siiyo cuntooyinkooda, laga jeekimo waxyaabo badan oo faa'iidooyin ahna loogu daro. maadaama aysan taas jirin, marka waxaa ku caawinayo waa faytamiiniskan ilmaha da'da loogu talagalay. waa in aad usoo qaadid dhakhtarkoodana aad kala tashatid. waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa jiro oo hooyooyinka ama waalidka aysan mar walbo isku dhiirigelin oo naftooda ka maqan iyo nafta caruurtooda. awal shay adiga ayaa fiican in aad bilaabatid faytamiiniska waxtarkiisa aad aragtid. hooyooyin haddii aynu nahay mar walbo waanu daalnaa, markasta caajis badan ayaa la dareemaa. waxaasoo kalena waxaa ugu wacan waa jirkaaga oo dhibaatooyin badan soo wajahay, fitamiinaadkiisa ay aad u lumeen. mar walbo la soco hooyo fitamiinaadkaaga si ilmahaaga iyo naftaada aad wax ugu qabatid, aad u noqotid qof. muuqaalkeena maantay ama qodobadii aan ka hadlayna maanta intaan ay noogu egyihiin. haddii marka aad ka heshay muuqaalkan, biliis like-ta ku qabo, sheergarey oo hooyo walbo aad garanaysid ugu yaraan 2 hooyo u sheergarey kaama badinaayi. like-tana ka halmaamin, muhiim ayay noo tahay oo dad badan ayay noo gaarisaa. insha Allah videogan dad badan ayuu gaarayaa, maadaama channelka waqti hore uu ugu dambeeyay wax inuu soo gudbiyo. like-ta wax badan ayay caawisaa. haddii aad igu cusub tahana subscribe ii saar oo aad ka heshay waxyaabaha aan soo gudbiyo. waxaan rajeynayaa muuqaalka xigo muuqaal aad ku anfaco oo aad ku soo duceysid in uu noqdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.